arida dacwalay degmada Xarshin ka dhacday oo ogaayay in qalbiga aad ku haysaan waxaan ka dirayaa baaq nabadeed shacabka wax gaareen halka degan haday barakac noqoto iyo hadii garanaysa isku dhici jiray muxuu ahaa wixii ka yimid booliska gaari iyo dadkii la dagaalamayba dhamaan waa dadkeeni inta badan wali waan tuunsanahay dad ka soo talaabay xadka oo jeedooyin kala duwan jiraan inay ku dhex jiraan haddana mar haddii dhexdana lagu dagaalamay dadku waa dadkanagii waa dadkan mas'uulka u ahayn waajib baa naga saaray inaan qancino inaan dhageysano in waxa ay ka cabanayaan aan maaragtay la fadhiisano waajib baa naga saaran awood iyo karti ku filan waa leenahay xukuumad ahaan arintaas waan ku filannahay haddaan ku filan weynana institutionadii kale naga caawin lahaa waan haysanaa culamaadiinkii baan leenahay odayaashii dhaqankaan leenahay aqooyaankii baan leenahay inta haddaan ku filan weyno waxba kuma filin inaan xalino muxuu ahaa arrinta noocaas ay timid shacabka iyo booliska meesha ku nool shacab wada nool bay ahaayeen kooxo fidno wadayaala dhibaato ay geysteen ayaa maanta arrintaas ku dhacday waxaan xaggan ka xaqiijinayaa ciidanka liyu booliska hore looga cabanayay day hayb ahaayeen haddeen ahayn cidda ay dhibaatada u geysteen haybta loo aanaynayan bay u badnayd 90% wixii ay dileen iyo waxay dhibaateeyeen haybta la sheegayeen bay wixii dadka soo gaaray duul buu ahaa sidaasay tahay maalinkii dhaweeytay dhibaatadu dhacday ee u horeysay runtii waxa la yaabo ay ka bilaabatay oo wax laga heshiiyey oo dad badan baa u dhigay dhul isku haysto dhul waa laga heshiiyey waa la dhamiyey maamulada heer degma isaga yimid heer gobol baa isaga yimid odayaashii baa loo yeeray waa la kala qaatay go'aankii waa arintii ugu horeysay ee madaxweynahan anigu subax saddexdii subaxnimo ilaa saddexdii dambe casarkii aanu fadhiyo weyn hawlaha noocaas ma galo kulli xabiiska nabadgelyada iyo gobolada yaa dhamaysta gobolka Faafan waxa ka ahaan jiray gudoomiye Cabdixakiin halka inala joogo ka warhaya sida loo xaliyay si runtii aad iyo aad cadaalad u ah oo nu arkeynay in tanaasulaad dheeraad la sameeyay haddana waxa aragtay baa ka dhashay waxay ku timid gogashii nabadeed iyo wanaagii meesha yaalay oo la laaday oo ducifnimo iyo jilaac loo arkay iyo ku timid arrintaas waxaan rajaynayaa gogosha nabadeed maanta aan dhigaynana inaan macna noocaas aan loo yeelan